الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى من صار على نهجه واهتدى بهديه ودينه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالات والبدع والفتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال marka koobaad ilaahay baa subxaanahu wa tacaala nu mahadnaqiya allaha subxaanahu wa tacaala inoo suuro geliyey inaynu iskugu nimaadno kulankan insha allahu tacaala inuu ku rajo weynahay iimaankeenu inuu ku ziyaado naciimka iyo wanaagga ilaahay agtiisa yaalana inaynu ku helno uu rabbina subxaanahu wa tacaala uu inugu siiyo. marka labaad waxaan u mahadnaqiya walaalayaal walaalaha beyjka ka shaqeeya jazaahum allahu khayra ee inoo suuro geliyey inoo habeeyey abase inoo fududeeyey inaynu wacdigan oo kale iyo waanadan hawada inaynu isku soo marino. waxaan kale oon u mahadnaqiyaa dadweynaha mujtamaca inta beyjka ku xidhan iyo inta gadaalba ka daawan doontaa sida wanaagsan ee milgada leh ay ula socdaan mawaadiicda diiniga ah ee bartan iyo beyjkeenan ka baxda. diinteenu waa nasteexo biidni illaahi tacaala. walaalayaal waxaynu u geli doonnaa caawa iyadoy dadku wakhtiyadooda ay ku kala duwan yihiin insha allahu tacaala waxaynu u geli doonnaa mowduuc maalin dhoweyd waxaynu ka tilmaannay abba si aynu ka carrabaabnay wakhtiga oo inugu cidhiidhiya aawadeed inoomay suuro gelin
inaynu mawduuca inaynu dhamaystirno. mawduucaasina dhinaca ahamiyada iyo tixgelintana waa mawduuc aad horta u muhiima, wa calayhi yaduuru madaaru ddiin. socodka iyo safarka ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ugu jirno ayuu inoo suuro gelinaya. ilaan waxaynu ognahay jaaniska adduunyadan aynu ku haysanno inuu yahay mid qura. waxa uu ka qaalisan yahayna dahabka. taana waxa ku tusinaysa maalinta qiyaamaha kuwii ilaahay diintiisa ku xadgudbay, allahu subxaanahu wa tacaala waajibaadkiisana dayacay, inay maalintaa oo kale inay tamaniyi doonaan oonay didiilaysan doonaan. ka qowlihi tacaala xata ida jaa axadahum almowt qaala rabbi irjicuun. mar allaaliya markay geerida indhaha ay iska qaadaan, yatamanaa alrujuuca ila addunya, wuxuu tamaniyaa adduunyadiinu dib inuu ugu laabto. talo walaalayaal sababtu maxay tahay? ma wuxuu doonaya beerihii adduunyada inuu beerto, mise fooqyadeedii quruxda badnayd ee bilicda sanayd inuu dhiso, mise baayic mushtarigii adduunyo iyo xoolihii la kala maamulayay ee bankiyada iyo xisaabaadka lagu ridaayey ma inuu soo habeeyaabaa? ma arrinkaa aawadii buu u tamaniyaya? maya. lacallii acmalu saalixan fiima tarakt. ujeeddo qudha unbuu leeyahay inuu wanaag iyo camal saalixa inuu soo sameeyo wuxuu adduunyada uu kaga yimi. sidaa aawadeed baaraka allaahu fiikum, mawduucana ka hadalkaynu ka hadalnaa wuxuu dawo ka noqon karaa calaacalkaa uu ilaahay uu inoo tusaaleeyey. abbase ilaahay tabaaraka wa tacaala uu inoo caddeeyey inaanay aadamuhu aanay u calaacalin, inay maanta intay goorigooray tahay iyagoo ku sugan fii miidaani almusaabaqa, garoonkii tartanka, iyo arrin ugu sababaysa inay ku guulaystaan maa cinda allahi tabaaraka wa tacaala min alkhayr waalhuda waaltawxiid waalsunna waalacmaali alsaalixa almuqariba ila allahi tabaaraka wa tacaala. maanta ayay tahayna lagu dadaalo. maalin dhoweyd waxaynu ka soo warrannay asbaabo fara badan, cafwan muuqaallo badan oo ku tusinaysa qofka inuu waahsi iyo daal iyo tacab uu kaga sugan yahay cibaadada, iyo arrimo kuu muujinaysa inuu ka gaabiyey cibaadadii ilaahay. xubinta inay shaqayn weydaa goormaa la gartaa? shaqaday qaban jirtay markay qaban weydo. abbase waxay suuragalay tahay inuu qabto markuu qofku qaban waayo. muuqaaladaasi arrimo badan baynu ku soo sababaynay, qaar aynu ku caddaynay,
inay ujeedadu inay tahay mid ka soo baxday abase ka soo maaxday daal ya tacab ya qalbi qallal ya qalbi angeg oo laga sahi qaadan waayay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa rabbina subxaanahu wa tacaala la adeeci waayey caawa in sha allahu tacaala waxaynu u geli doonnaa oo si toos aynu uga warrami doonnaa in sha allahu tacaala maa hiya asbaabu alfutuur waa maxay asbaabta daalka iyo caajisnimada iyo waahsiga keena iyo qofka inay suuragalay u noqon weydo inuu ku dadaalo cibaadada ilaahay tabaaraka wa tacaala arrintaasi ayaa maanta caawa in sha allahu tacaala aynu ka hadli doonnaa walaalayaal markaynu leenahay futuur waa iga xasuusin un weeye waa waahsi waa daal qofka ka hortaagan abase ka teeda cibaadada iyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku xidhnaado laa yacmalu asaalixaat camalada wanaagsan ma sameeyo hadduu sameeyana wuxuu sameeyaa mid waahsi iyo caajisnimo iyo cagajiidi ay ku dheehan tahay marka waxaynu doonaynaa inaynu fahanno abase inaynu garanno waa maxay asbaabta arrimaha caynkan oo kale keenta sababtu maxay noqonaysaa walaalayaal aynu uga warramayna mawduucan si qof kastoo inaga midi naftiisa ula xisaabtamo oo qofku hadduu yahay mid camalka wanaagsan la yimi wejigii ilaahay uu ugu tilmaamay nebiguna uu inugu caddeeyey calayhi salaatu wassalaamna u gutay waa inuu intaa ka sii badiyo hadduu camalkiisa ay ku jiraan abase ay ku sugan tahay waa sida maanta loo badan yahay qofuu ilaahay u naxariistay mooyaane waa inuu qofka muslimku waa inuu isdabaqabateeyo waxa weeyaan cibaadadiisaasi ee kala dhantaalan waa inuu ku kabo bitawba iyo gudashada camalkaasi siday tahay inuu ku guto markaynu leenahay walaalayaal asbaabu alfutuur asbaab sababay daalka maxaynu uga jeednaa waxaynu uga jeednaa hiya tilka turuq almuwassila ilaa dacfi aliimaan waa waddooyinka kugu hoggaamiya abase ku gaarsiiya dacfu liimaanka qofku inuu iimaankiisu aad inuu u hooseeyo ilaa meesha laga dhaqdhaqaaqaa waa iimaanka mar walba uu yahay iimaankaagu mid sarreeya ku dheehan bilikhlaas ku dheehan bilmutaabaca iyo gudashada cibaadada loo gudanaayo siday u guteen saxaabata rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam oo aan la eegahayn oo qura camalkani miyuu wanaagsan yahay mise ma wanaagsana xataa hadduu camalku wanaagsan yahay dariiqadaad u gudanaysid ayaa lagaaga fadhiya
inay noqoto mid shabbahda taaka taaka iyo dhundhundhundhunna u leeg cibaadadii saxaabada ilaan iyaga ayaa cilmiga ka reebay nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam arrintaana xagga maxaa ku baxay qofku inuu ku cibaadaysto bilbidac arrin bidca ah walow camalkaasi dushiisa sare marka la eego walow ha noqdo camal wanaagsan oo aadamuhu ay la dhacaan oo yidhaahdaan alla ilaahe camal wanaagsan oo camalkan ka maqani ma jiro laakiin xaqiiqadiisu ay tahay arrin bidca ah nebi maxamed aanu samaynin calayhi salaatu wassalaam abase saxaabadu aanay sidaa ka fahmin oo bani aadamku iyagu fahn yaroo kooban hawsha caynkaasi aynay iskaga fahmeen marka hadalka waxaan uga socdaa meesha laga dhaqaaqo waa iimaanka mar walba uu iimaankaagu tayadiisu ay sarrayso oo arrimaha aan kuu soo sheegay ay ku dheehan tahay mar walba uu iimaankaagu wuxuu yeelanayo tayo yaa arrin xamaasad qura aan ku dhisnayn تعمل الصالحات وتتقي رب السماوات والأرض وحد كبقنيسا الله أبو ري السماوات كي أرلضا على علم وتتوكل على الله إلهنا وتنصر نيس ربي سبحانه وتعالى مركا أسباب وحين كتل ماني inay tahay asbaabta qofka mu'minka ah ku hogaaminaysa walaalayaal inuu wahsi iyo daal uu ku yimaado wahsiga iyo daalka xaqiiqadiisuna walaalayaal waxay tahay ضعف الإيمان sida hore baanu soo tilmaamay haddaynu asbaabta iska guuda galno sababta u soo horeysaba sababta koobaad waxay noqonaysaa ee qofka ku ridda daalka iyo caajisnimada iyo inuu ka gaabiyo cibaadada ilaahay tabaaraka wa tacaala cadamu tacahudi alcabd iimaanah min xiinin liaakhar qofku inuu ka warhayn waayo iimaankiisa waqti walba saacad iyo tallaabo iyo daqiiqad iyo midhidh iyo sakan arrintaasina waxa ugu daliila xadiis majliskii hore aynu soo tilmaannay min xadiisi xandala markuu la kulmay abubakar radia allahu canhu muxuu ku yidhi naafaqa xandala nifaaq iyo munaafaqnimuu ku dhacay faqaala lahu abu bakrin subxaana allah ilaahay baa ceeb ka nasahane tuhmada oo kale sidee baad naftaada aad ugu tuhuntay xandala sabab waa arrintaa ku sababeeyey oo wuxuu yidhi rasuulka ilaahay agtiisa markanu joogno iimaan cajiiba uu rasuulkuna uu nagu waaniyo biljannati wannaar iimaan la yaab badan baanu dareennaa وإذا رجعنا إلى الأزواج والأولاد وعاصفنا الأزواج والأولاد والضيعات مركا نوصل بنضو مركا يجي أوبط كيجي أنو دخل نبا بيلهدي الدنيا ديبا
arrintanu dareemaynay rasuulka ilaahay agtiisa markanu joognay wax ka duwan baanu dareennaa subxaan allah arrintaa maxaan uga socdaa bal u fiirso saxaabadu siday arrintaa caynkaasi ay ula socdeen taasi maxay kuu tilmaamaysaa waa ka warhayn iimaankooga ay ka warhayaan oy mar walba ay ku dadaaliyaan abubakar jawaabtiisii maxay noqotay walaalayaal abubakar jawaabtiisii waxay noqotay inuu yidhi wa inna lanalqaa dalik annaguba laftayadu arrinta caynkaasiya waanu la kulannaa أيها المسلمون عباد الله إذا كان هذا حال سادات الأولياء وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بشروا بالجنة وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم هديهن هرمودكي يهرسدكي أوليادو حالة صدايتها يقول رسولك إلهي لنولا يقول قرني قينوليهن ويهي قرني فضلي بدن فما بالك نحن اليوم إنه حالتنا مانتا حاتكون معنين كرتا أبا سيادكون تلمامي كرتا تاوحا كدرانا إيسا قفكو إنو مرول بإيمان كيسا إنو كد دالو عشر كمانتا إن شاء الله وحن نسكر راعينيا سببتا يدودا يعني سؤاشا كلام إيشا ينوطا على واحد تاهي عاجسك يواسك محل قد وينيا جوابت هذا نوان راعينيا قفك وحي دالك أوردني وحو قصة أرورا يكا قابنت إلهي دينتي سوكا قابيو بسبب ماذا؟ سببت يدو محيطاي ولا ريا سببت يدو محيطاي قفكو إنو كقابيي حقوق دي إلهي تبارك وتعالى إيمان كيسينا إنو كورهاي واي اتصالهان دنيوية haddaad maanta baabuur baad leedahay baabuurka kama warhaysid ma hagaajisid labadii bilood saddexdii bilood markay u dhammaato saliidda kama beddeshid ma daryeeshid baabuurka oo kale muxuu ku dambayn doonaa inuu maalin meel cidlo ah ku dhigo أبا مالنتا جيرش أدجيسي علادو أد أودي كراهين أو سبب يسينو مشين كي بينو فريستي أيا لغوغو شيدي دورا هذا هو مثال وتصالح وحين كسو دوينين هدو قفكو قلبي جيسا وكورهين وايو اسبدل لدى نوعيدا كلا دوانه كو إيمانيسا وحلقا أبا والعياذ بالله أن يكتب في الفاجرين إنما عيسى بلغو قركو فاجرين عمل كيسنا لغو صو خاتم حمضة إنما الأعمال بالخواتيم عملكنا وخاتمة سيدا آودين محالة قابها هي قفك مسلمكو وإنو كد دالو قفك مسلمكو وإنو كد دالو عملك الله يقانو إنو إيمانكي سينو كورهي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحو تلمامين يلي
اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. إله واحد نو زيادة إيمان يا يقين يا فهم دينت إلهي عن الله نحي وحدعي ترتي معاذ بن جبل رضي الله عنه إنه أورنشري اجلس بنا نؤمن ساعة كالي أون فريسية هل صاعب إلهي أن الرمين سبحانه وتعالى. أرنتاس وحي نوت الماما بارك الله فيكم قفك مسلمكو مرولبا إنو كور هي إيمان كيسا. أرنتاسنا إنو وحويا إنو كد دالو سبب طلبات وحي تهي قفك إيمان كيسا وقد دالي بارك الله فيكم أبا السبب طلبات عفوا كان يسا إيمانك إنه هوسو أدعو الجهل بما أعده الله تعالى للمتقين من الجنان. وحيالها الدالك يوهتك كان وحكمدا جاهل تنمدا وقفك جاهل كيهي وحو إلهي الدياريي ضدك إلهي كبقضي ربي سبحانه وتعالى وجندي سيلهي وقدياني أرنتاسو إلاوي أبا جاهل بوكيهي أرنتاسي هدو قفكو مرولبا نيدا وكوهين وايو إنا الدنيا دنينا يتهي كميلقاد إن الله صعده إلهي جندي سبحانه وتعالى وحارنتها محاكو دنبين يسول ريال أن يتكاسل إن وحويا دال يعاجس مما إني كتمات لأنه فطر على التعلق بالشكر عفوا لأنه تكاسل عنها أرنتاسي كسل يعاجس مما يكقابن أي وحويا أرنتاسي وكقسبنا وحي لهينا سبحانه وتعالى نوي نوت المامي هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. قرآن كوانو متقين تنوحي لي ميل في عنو وناكسن النقران جنات عدن مفتحة لهم الأبواب نعيم فربضنا حق إلهي وأوكغور ربي سبحانه وتعالى. marka qofku muxuu bilaabiyaa jannada ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku dadaalo. nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri qala Allah kama jaa 'inda al-Bukhari a'dadtu li'ibadi as-salihin adoomahiga saalihiinta waxaan u diyaariyay ma la 'aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. إلهنا سبحانه وتعالى وحي نوت المامية وربي سبحانه وتعالى نوي نوع الديي إنو أدوميه سينو دياري صالحين ما لا عين رأت وحي لآني أرك ولا أذن سمعت دقينا آني مقل ولا خطر على قلب بشر يا أرنا انقصوا دعين بشر ابن آدم. فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. حتى الضمطان واحد أخرضان أيو يري رسولك عليه الصلاة والسلام فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين.
إذن أرنتا جنة كصابصا قفكو وإنا نوك الدال مرو البنوين إنده سوين هرتي سوين يتاوى قلبي جنوين كم يسيه إلهنا سبحانه وتعالى يوفق المسلم لما يحبه ربي ويرضاه إلهنا سبحانه وتعالى قفك مسلم كأ وحقوة فتشنية شيء كستاء أو الله سبحانه وتعالى وتعليه لكن ذلك يتعبك يواسك محاكينا بارك الله فيكم وحكانا قفك أرتديس آخره إني نقطه متقابا تانا محينو كغبحي كرنا مرو البقفك مسلم كها حصوصته الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين أضيقا ضنبا الدنيا وقساهدي دورة دردربا كجليسة تنفق في الصدقات صدقات آيات بحنيسة صلاة الليل كآيات كنيسة واحد كد ليس عمل والبا أو وناكسن أو إلهي كود ويا سبحانه وتعالى واحد كفو قاندون تبارك الله فيكم شيء كسته أو صببكو قلنا قضاء عمل وناكسن إنو كاهر يستاقو بل ما توفر صدا وراريا وقت يبدأ ما ميلها لسكا طيعة تصالها الرسول كان عليه الصلاة والسلام وحو إنات المامية وراريا هدو أدونك وهدو إلهدو سبحان الله وبحمده غرس له قراص في الجنة قيد باتشننا لوغا بيره إلهي بان إذن كداريي وراريا إمي سجد بين طيعني وجاء عند أم حبيبة حديث أم حبيبة وحكتبي من صلى 12 ركعة بني له بيتا في الجنة قفك اللبية تبرك عدود وصلاته سنها هيدا السنن الرواتب فرلدا كهر رئيسية بكدن بيسي اللبية طوانك هاي مالي والبو قفك تكنا قفك تكنا شندا أيوها قري لوغا بصا إميسا قري بالا طيعي أسباب الفلاح وحكمدا خشوع ذا كمدا إذا سبب تاسي وحين كسا أرورينينا سبب توهسيجا قفكو إنو وهسدو سبب تكاني سوامحي بارك الله فيكم الجهل بما عده الله تعالى للمتقين من الجنان إنو قفكو جاهل كيهي أبس ويسكبا إلا وسيهي وناق فرها بضان إلهي أكتيسا ربي سبحانه وتعالى ياله dabadeedna adduunyo uba qalbigaaga dhex qaadaysaa taasaad ku raali noqonaysaa tallaabo adigoo aan isdareemahayna iimaankaagii baa daciifiya sababta saddexaad waxay tahay walaalayaal ee qofka daalka iyo wahsiga ku keenaysa istibcaad alcuquubaat addunyawiyya inuu qofku inuu fogaysto عقوبتها الدنيا والاستهانة بالعذاب الأخروي أرنتننا وأرن آد مهمة وأرنتن وحين كوضنا الضونك إنا ندريم هين سببت كدرة معصية إلى معصية الله بعقابات بيلا ضحي أو لنقل ثلاثة
تأدوية دا أنبا لبوسي كالقيب سميسا مد قفك أدوية دي سالغو عقابه oo sida inuu ogsoonay macsiyadu de waxay tagsiisaa risqiga abuurka bani aadamkana dhibaato ayay ku keentaa oo dadka macaasida had iyo jeeraa leh qaabdhismoodkooga iyo abuurkooga bedelan liannahum sadaqa fiihim xadiidu nabiyi sala allahu calayhi wasalam asaxiix جعل الله الذل والصغار على من خالف أمري دل يهوصين إلى وجهك الكهو يقفك أمر كيغا خلافه عقاب باي معصية وإلى هاي دين عقلبك محا كوي أو كبطرا هدو إلى هاي قلبك قال لنجحه أو لطبولو أو حق أو دلقت هذا صلاة لغوغو وانينيا صلاة كمرهاي أواندا صاد قادنهاي إلهي بلغوغو عبسي قلينيا مركا صاد بقنهاي واجبات كيسي بلغوغو ياليا مركا سيواندا سيدك تادو باني أدلولي وصوابنا أني ونقونا هاي قلبي غاقا فريسط وهي واسي باكا مغضى نتيجة سواء محي ولا ريا ونتيجة المعاصي قبكو إنو عذابك آخرنا إنو كموقيح ولذلك سببتنا قفكو إنو فوقيستو عقوبتها الدنيا دا كو إيمان إيسا كقدرنا إيسا بسبب المعصية والمخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى maxay keenaysaa arrintaasi daal bay keenaysaa iyo caajisnimo wanaagii ba inaad faraha ka qaadid walciyaadu billaah qofka sinada ku dhaqmiyo oo kale ina iimaankii wax weeye lagu dul hadheeyay ma dareensana inuu caafimaadkiisii inuu u waayo ma dareensana ma dareensana cuquubadii aakhirada ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeenkay kaxeeyeen labadii malak ورسولك تلمامي صلوات ربي وسلامه عليه إنه موفه إنه رسولك دليمي وحكود حركي رق يدومر قاقاون مركو طبكو حقه سو كجي مادو ضوضاء ويقيلني صوحا يقيله أي كسو يسمى فضا دحديد مركي النار يقول حاجة سري وصاكعة مركي ضبكا سنا وكي ردمه هاص بيء النقضاء روائح كريهة أرآد أقرمون أي كسو يسمى فضا دحديد رسولك عليه الصلاة والسلام لبدي ملك بويديي من هؤلاء قال انطلق انطلق دقاق بيكون هذا النبي عليه الصلاة والسلام مرضا بين نبي وشاقي صلوات ربي والسلام عليه تدكامات قرنيسا موفدة كتشري ورقي يدومر كيسي نيسيتري arrinka waxaan uga socdaa qofku arrimaha oo dhan iyo cuquubadaha ay macaasidu ay leedahay qofka markay qalbigiisa ay ka maqnaato xaaladiisu maxay ku dambaysaa inuu macsiyo walba inuu ka soo cabo uu ka soo darsado uu ka soo dhaansado waxa ku maqanna ma oga ولذلك أي قفك مؤمن كأوح لو جبها هي أن يستحضر عقوبات المعاصي الدنيوية والأخروية إن قفك مؤمن كمر والبوين صاحب الصدى
cuquubadaha ka dhalanaysa adduunyada iyo aakhirada qafladana inuu iska ilaaliyo ayuu kaga badbaadiyaa waxa lagaga badbaadi kara qodobkan oo kale bimaxabbati illaah ilaahay inuu jeclaado uu rajeeyo abaalmarintiisa saxaabadii nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam arrintaa mooyaane walaalayaal arrin kale wax weeyaan kumay badbaadin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisana khayr iyo wanaag kagama aanay mutaysanin هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحط المامين لو نادى مناد من السماء هضو يرمد كي يرى الصمد أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم أجمعون إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون هو وحط المامين عمر ورواه أبو نعيم في الحلية أبو نعيم بحلية كسو صاري هضو كدواقي لها الصمد مد دواقة أو ملك وأران لها تدكودا جندي جليا قف موياني كاس أنيغا مسكو ملاين لها وحن يقيس الله كاسين يهي أنيغا مركاسو يدي رواية كلنا وحكتم أيها الناس إنكم داخلون النار إلى رجلا واحدا لرجوت أن أكونه حتى لو ردت كردن النار تيجليا جنة يجليا مد مويانه أبا النار أيها الناس إنكم داخلون النار إلا رجلا داخلون الجنة إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكونه يعني كان نار تجليا وأنيقا وحويا إنوياه وكذلك مركو أخريي عمر بن الخطاب قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع بكى واشتد بكاؤه آدبو المايي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا ونتيجة كدلتي ولا ليال جعلت إلهي لو قبر ربي سبحانه وتعالى وحكينا ولا ليال صوبت أفراد واسقا يعاجس لماذا كان توحى كاميرا الانبهار بالدنيا وزينتها قفكو إنو كو إند طلان طلو وكو إند وريرو الدنيا دا قروح دا يدل دلال كيدا وكو نكت صومو بنعمها الزائلة نعموين كيدا قورية يدو كشقية يدو قرحية يدو كفكرة يدو كددالة وإن للدنيا من الفتنة العظيمة دنيانا كلي جيد ما قورين يسوء ما صعوتين فتن فربما بين صعوتها ما يتغير بها حال العباد من الثبات إلى الفطور ومن حالة آدمون ولا ليلا يسكب الدليس قفك وحو كقوري حالة سقناشيه وحو قوريا حالة وحويان دال سبب تادونا محيطاي والدنيا دوي ولا يجعل لنفسه وقتا للعبادة والتزود للآخرة وقت نفتي سو مصميناي وكد دالو آخرنا وقوك عطمه ولذلك إلهي سبحانه وتعالى أرنت واوي نوغدقي لماذا إلهي محوي نوغدقي سبحانه وتعالى لأنها أصل الشر كله والشر كأوردن دمانتي قوبتا يا عيلك يا إشا يكسو محذوي إمي سقف بالصلاة دي فراها كقاضي إمي سقف بتوحيد كي طيعي إمي سقف معاصي كل حقر قومي أو
وقفكاسي وهامد كتل ماما بالخير والصلاح وكمدها من أصحاب المساجد والمحاضرات. كل هذا بفتنة الدنيا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ما نتا كبق ربو إلهي وما نتا قيامه والد با ولد كيسان أبال ما ننكرهين أون بدبادين كرهين أو وحبان ترهين مثل الداري أي والد كيس عذابك إلهي أن كسمة بحينهين. إن وعد الله حق بلنك إلهي ومدب أوي أو حق فلا تغضنكم الحياة الدنيا ولا يغضنكم بالله الغرور. إلهي سبحانه وتعالى وحط المامية الدنيا يعني إذن طين يعني معنوه وحوي يعني السبب يعني إذن كن قونين الدنيا إن تكون يعضان إلهي واجبات كيسة يا ربي فر الذي سي الله لا يسيد للدونا يو صعب كهلقوقو قرع مانتا سي الله لا يسيد للدنيا مانتا هلقوقو يراهو أديقا صحصا أناقا كقرب تاغن هيل يهوبا ونكول قرب تاغن حي والله غدا لا يفيدونك بشيء بريك مال مركا قياما لا يمادو إلهي يكتي سيناني وحبك ترحي فلا تغرنكم الحياة الدنيا فالنولشا الدنيا دياني دين طقي وقروح يد الدلال بينه أو حقيقة يدب أن كفردي يعني دين لقويني والله الدنيا دن مال مهيغو markuu qofku xabaasha markuu galo aba markay geeridu ay u soo xaadirto ayuu adoonku waqtiga wuxuu isku maleeyaa inuu riyoonaayay kadibna meesha waxa imanaysa fa basaruka al-yawma hadid aragaagu waa fi qayhay سيدو إلهي بف سبحانه وتعالى في سورة قاف يوفي سورة الملك لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. انظروا يا عباد الله وكفردي فاجرينتي والدنبيل ياشي المجرمين الذين ضيعوا حقوق الله سيدي ما تيو على عليا وراليا هذا وحنو مقلي لهي هذا عقلي يلان لهي قراتك يقوى أبوها مد توصنو وناكسن أو أرمها سيدا صحسن وحو ميزامة ما أنتكو ما نان دحفر دينين أباكو ما نان سقنان دين وحوية نار تجهنمة حيوقتها رسال انتا سورانيا الدنيا دوا كظل زايد marka waxad kaga badbaad arintaasi sababteeduna adduunyada la jeclaado oo laga daba dhaco oo iyada loo hanqal taago waxay sababaysaa ya cibaadallah qofku inuu daalo meel baad u badanaysaa masaajidda inaad xaadirtid baa kugu yaraanaysaa waxa kaloo kugu yaraanaysaa khayrka inaad degaysatid waxa kugu badanaysaa sharka inaad badsatid intaasina hamoodi arrin cidlo u dhacaysa waa arrin adiga kugu maqan weeye adiga unbay kugu maqan tahay iimaankaaga intaa cunaysaa sida cudurka halisnimada badan ayay dambiyadu iimaankaaga jaqiyaan ogo
shaytaanku inaanu ku raali noqon ahayn inaad macsiyo oo qura inaad iskaga dhacdid bal yuriidu wuxuu doonayaa shaytaanku inuu kuu hogaamiyo an yaquuduka ila alkufr gaalnimuu kuu wadaa sidaa aawadeed arrintaa dawadeedu waxay noqonaysaa inay quluubtu walaalayaan aakhiro inay ku tacalluqdo saxaabada rasuulka ilaahay mar walba waxay ahaayeen mid ay arrintaasi quluubtooda ay raadayso cuthmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu ayaa maalin maalmaha ka mida xabaalaha dul yimi fabakaa xataa balla sara'a wuu ilmeeyey ilaa arladiiyo dhulkii ka hooseeyey uu qooyey addoon uu xoreeyey oo cuthmaan la socday mawla cuthmaan ayaa ku yidhi marka rasuulka ilaahay agtiisa aynu joogno ee jannada iyo naarta laynagu waaniyo ma oydid ee laakiin qabriga iyo xabaalaha marka dul timaadid maxaad u ilmaysaa abbase maxaad u baroorataa maxaa ilmada kaa keena ilaa ilmadu ay ka gaadho mid garhkaaga qoysa iyo dhulka inta ay kaa hoosaysa cuthmaan muxuu ugu jawaabay samictu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam yaquul alqabru أwalu manaazil الآakhira qabrigu guryaha aakhiro waa gurigii ugu horreeyey guriga haddaa la badbaado wixii ka dambeeyana waa la badbaadiya gurigaana haddaa lagu hoobto oo lagu daato wixii ka dambeeyana waa ay ka daran tahay taasi may ahayn mid rasuulka xataa barasho ahaan iyo cilmi ahaan ay uga qaateen waa mid ay ficil ahaan rasuulka ay uga qaateen calayhi salaatu wasalaam iisoo qaba xadiidkii rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam iyadoo xabaal la qodiyo abba rasuulku wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada la socda dad meel ku dul ururay markaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam insha allah su'aaluhu marka mawduuca wax yar baa inooga hadhay markaynu dhammayno ayaa su'aalahaynu u geli doona insha allahu tacaala su'aalaha kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabaduu weydiiyey wuxuu ku yidhi calaama yajtamicuuna haaulaa waa raggaa meeshaa ku dul ururay maxay ku kulmeen aw maa huwa sababu ijtimaacihi kulankooga sababtiisu maxay tahay wuxuu rasuulku u tilmaamay calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim abba rasuulka loo tilmaamay salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh ina la yidhi xabaal bay qodiyaan rasuulku uu soo orday calayhi salaatu wasalaam ilaa xabaasha uu ku soo dhammaaday markaa rasuulku wuxuu u dhacay calayhi salaatu wasalaam jilba joog jilbaha ayuu u dhacay saxaabigii xadiidka warinaayey magiciisa iga baxay laakiin xadiidku waa saxiix waqad xasanahu wasaxaxahu alcalaamatu alalbani wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam hortiisaan yimi kadibna rasuulku kelimad yaroo kooban ayaa nebigu ku waaniyey saxaabada ah talow rasuulku muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam limithli haada faacidduu intuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xabaasha farta uu ku fiiqay iyo iilka ayuu yidhi tanoo kale u diyaarsada maxaa loo diyaarsanaya walaalayaal waa camal saalixa oo ilaahay kuu dhoweeya rabbi subxaanahu wa tacaala
marka arrintaasi taasaa lagaga badbaadi karaa. qofka muslimkuna waa inuu iska ilaaliyo tuula alamal, ididiila dheer, waayo waa qaatilu lhimam. qofka hankiisa oo waxyaalaha dila ee boqnogooyay arrintaasi ka mid tahay, inuu qofku ididiila dheer weligiiba inuu noolaan doono. war hebelow toobadkeen, may hadhow baan toobad keenaya, hadhow baan ilaahay u soo noqonaya. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi darhum ya'kul wayatamattacu wayulhihim alamal fasawfa yaclamuun. iska daa nebi maxamedow, iskaga tag, ha cunaan oo ha cabbaan oo ha mashquuliso ididiiladu. kolba ididiiladu arrin cusub gogasheeda ha u fidiso. fasawfa yaclamuun, marka qiyaamaha la yimaado ayay ogaan doonaan. maanta insha allahu tacaala afartaas sababood ayaan ku soo ururin doonaa insha allahu tacaala. asbaabuhu intaa way ka badan yihiin biidni rabbina subxaana wa tacaala. hadduu ilaahay yidhaahdana biidni illaahi wa biidni almawla mawduuca gadaal ayaynu ka dhammaystiri doonaa insha allahu tacaala. mawduucan kollay su'aalo ayay dadweynuhu ay ka qabaan mar dhoweyd, sida muraayadda baan ka akhrinayay. bal insha allahu tacaala walaalaha waxaynu u furi doonaa nambarkaa dusha ku qoran ee whatsappka iyo iimada ayaa laga soo hadli doona. ha noqdaana su'aaluhu insha allah arrin towbada iyo camalka saalixa iyo ku tacalluqa, si faa'iidaduna walaalayaal ay u sii dhammaystiranto biidni illaahi tacaala hadduu rabbi idmo. marka ciddii su'aal qabta insha allahu tacaala iimada aba whatsappka ha ka soo hadlaan. jazaakum allahu khayra wa axsana allahu ilaykum. insha allah wixii su'aala hadduu ilaahay yidhaahdo iimada aba insha allahu tacaala whatsappka ayaa laga soo hadli doonaa insha allahu tacaala, si wixii mawduuca ugu tacalluqay biidni illaahi tacaala aynu uga jawaabno biidni illaahi tacaala. hadday wax as'ila ah ay jiraan ha laga soo hadlo iimada aba whatsappka. insha allahu tacaala 5 daqiiqa dadweynahaynu siin doonaa ay ku soo diyaar garoobaan insha allah. codka maa la maqla horta, codkayga maad maqlaysaan? hadduu ilaahay idhaa xagga haa igu soo qora insha allah dad codka maqlaysaan. waayo jazaakum allah khayr walaalaha soo qoray, ilaahay khayr iyo wanaag ha idinka abaalmariyo insha allah. waayo wixii su'aala aba mawduuca ha ku saabsanaado aba mawduuca ha ka baxsanaado, haddaa mawduuca waxba laga hayn insha allahu tacaala way soo hadli karaan iimada aba whatsappka. labadaasaa inoo furan insha allah. jazaakum allah khayr, jazaakum allah khayr. waayahay
hadday jiraan wax su'aalo ah whatsappka aba iimada biidni illaahi tacaala إن شاء الله أنت صايم مسكجك كوبي دونا إن شاء الله